الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي والالبو ايدin salaamaya meel kasta iyo waa kasta joognana allah ina barakeeyo dejin wanaagsan oo barakeysan allah ina dejiyo runtii subxaan allah ilaahayna xifdiyo ilaahay baana mahad iskale waqtigan inaynu isla qaadanay ina siiyey sheekh culimadeena kamid ah culimada wadanka sacuudiga u dhalatay allah barakeeyo isaga culimadeena dhanna meel kasta iyo waa kasta joogan inoo wada barakeeyo ayaa runtii wuxuu ka sheekeynayay qiso aad u cajiib badan. qisada marka way itaabat runtii caalamkan iyo subxaan allah ilaahay ciriya dhulba ilaahay baa iskale ilaah baana maamula rabbi subxaana watacaala baana talada iyo amarkuba mid hore iyo mid dambaba siduu ilaahay inoo sheegay ilaahay bay u ahaatay rabbi subxaana watacaala ilaahayna wuu xarimay in qofka kale uu dulmiyo walaalkiisa iyo khalqigu inay isdulmiyaan ilaahay dulmiga naftiisana wuu ka xarimay addoommadiisana dhexdooda xaaraan ayuu ka yeelay in la isdulmiyo rabbi subxaana watacaala jalla fi culaa addoonka rasuulku siduu inoo sheegeen calayhi salaatu wasalaam yaa ilaahay subxaana watacaala dulmigu inuu yahay dulumaatu yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaama mugdiyaashiisa inuu ka mid yahay halkaasna ilaahay adduunkana qofka wax dulmiya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qofka la dulmiyay inuu ilaahay yiraahdo walow bacda xiin waqtiba ha ahaatee addoonkayga waan kuu gargaaraya subxaan allah yacni ama qofkan wax dulminaya adduunkana in lagaga gooyo lagaya aakhirana lagu sugayo ilaahay subxaana watacaala ma dheedheel baa ilaahay wuxuu aakhiro u samaystay xisaabna ii jidho la isxisaabinaya cadaabna loo abuuray jannana loo abuuray ilaahayna waa ballan qaaday inuu naarna buuxinayo jannadana uu buuxinayo ilaahayna badbaadiyo adduun iyo aakhiro kuwa jannadiisa galoo raalli alla ka noqdo allahayna ku daro marka walaalayaalow subxaan allah naftayda iyo tiinaba cabsida ilaah u dardaarmaya ilaahayna waa inoo sheegay kitaabkiisa rabbi subxaana watacaala rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam waa inoo sheegay in agoonka gurigii lagu karaameeyana uu yahay guri barakaysan agoonka guriga lagu duleeyana inuu yahay guri halaagsamay oo hoog yaallo ilaahay guryaheena ha badbaadiyo innagana allahina badbaadiyo kuwo agoonta iyo masaakiinta iyo ducafada looga gargaaro lagu karaameeyana allah ka dhigo qof kastoo weliba haween haddaynu nahay inuu isjirno rag iyo haweenba haddaynu nahay toddobada dunuubta oo kabaa'irta waaweyn oo halaagta waxaa ka mid ahaa agoonka in xaqa agoonka la cuno ayay ka mid ahayd in xaqa agoonka la cunaa ka mid ahayd sidoo kale ilaahay kitaabkiisa kaga warramay agoonta iyo xaqa ay leeyihiin in qofka xaqa agoonta cuna yaa inuu naar inuu calooshiisa ka buuxinayo wuxuu cunayaba ay naar tahay ilaahay inuu dardaarmay in la hagaajiyo in la dhaqaaleeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidoo kale uu yiri aniga iyo qofka agoonka iyo qofta garoobta ah iyo gabdhahaba qofka koriya oo dhaqaaleeya aniga isagu inaan sidaa jannada ku nahay oo rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam ee diris noqonayaan farta maaragtay sabaabada iyo farta dheer oo ku xigta sidaasayta inuu iskugu lamaaniyo xagga khayrka iyo barakada laga helayo agoonka dheedheel ma aha walaalayaal agoonta aan iska jirno agoonta aan karaamayno rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii uga sheegtay inuu qalbi adayg iyo risqi iyo wax kasta inuu u tilmaamay inuu agoonka madaxa u salaaxo inuu adoonka dhaqaaleeyo yacni subxaan allah diinteenna intee rasuulkeenna inuu ku booriyay calayhi salaatu wasalaam kitaabu rabbulcaalamiin intee ku jirta lagaga hadlaya agoonta iyo dhaqaalahooda in maaragtay la karaameeyo la dhaqaaleeyo inaan la guulguulin yaa subxaan allah xataa nabigeenna calayhi salaatu isagoo dhaqaaleynaya gacanta goya innaga laynala hadlaya markii nabigeenna lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam nabigeenna alla wuu dhowray alla mid dhaqaaleeyo agoonta in maaragtay karaameeyo ayuu ahay innaga ayay bahasho inagu socotaa qisadan wallaahi markaan maqlay aad bay ii taabatay subxaan allah marka agoonta ilaahay aan uga baqanno aan iska jirno aan dhaqaalayno aan dadka ugu yeerno inay dhaqaaleeyaan inay xaqooda iska ilaaliyaan wiil iyo gabarba agoonta aan xaqooda iska ilaalino walaalayaal aan ka dhowrsanno ilaahay jalla fi culaa baa kitaabkiisa inagu yiri xataa kii dhaqaalaynayay oo gacanta ku hayay inuu xoolahooda iska jiro hadduu ka dhowrsan karo uu ka dhowrsado balka war sida laynoo yacni xaqooda loo weynaysiiyey diinteena islaamka
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahaygi sidaa addoommadiisa u maamulay baa ku mahadsan, isagaana ciriyo dhulba iska leh. xaqoodana ilaah baa u hadlay. haweenka masaakiinta iyo agoontiba iyo masaakiintiba ilaahay waa u hadlay. ilaahay subxaana watacaala isagaan ku mahadinayna. allahuma laka alxamdu walaka shukr. rasuulkeennuna calayhi salaatu salaam waxyaalaha uu ka dardaarmay wey, uu ka digay in la iska ilaaliyo xaqooda. marka haweenkii iyo agoontii iyo masaakiintii iyo ducafadiiba in la iska ilaaliyo. markii sheekhu wuxuu ka sheekeynaya allah barakeeyo, wuxuu yiri subxaana allah, dulmiga cuquubadiisa iyo caqibada xun uu leeyahay tii aakhirana ay damayso. subxaana allah. marka walaalayaal waan isjirno. bismillah, allahuma salli calaa maxamed. marka sheekhu wuxuu yiri qisadani waxay ka dhacday buu yiri wadanka urdun bay ka dhacday buu yiri. waxa dhacday buu yiri marka sheekhu, ninbaa wuxuu lahaa buu yiri xaas buu lahaa. xaaskiisii wiil yar oo ilmo yar oo radiica ayay u lahayd. waxa dhacday buu yiri marka ninkaas wuxuu lahaa maaragtay hal maaragtay walaalaa la dhashay. hal walaal ayaa la dhashay. ninkii marka taajirka ahaa oo xoolaha lahaa oo maaragtay ilmaha yar iyo xaaska lahaa, tii alla u timi. tii alle ayaa u timi, wuu dhintay. markuu dhintay yaa meesha jooga oo walaalihiisa ah, halkii walaal u lahaa iyo xaaskiisii iyo wiilkiisii yaraa, ilmihii yaraayo dhalay. waxaa dhacday marka waxaasoo xoolo ah uu ka tegey. waxaa marka dhacday ninkii walaalkiisa ahaa oo halka walaal uu lahaa, wiilka yar adeerkiisa ahaa, gabadhana dumaashigeed ahaa ayaa u yimi. markuu u yimi xaaskii iyo ilmihii yaraa, gabadhii buu la hadlay. wuxuu yiri dhegayso, maadaama walaalkay aniga keliya aan la dhashay oo wiilkan yar oo ilmahan yarka aan adeer u ahay, adigana aan dumaashiga ahay, waxaan rabaa buu yiri inaa anigu mas-uul idinka noqdo. anigaa maanta idiin jooga, yaa kaloo idiin jooga, qof kaloo maanta idiin jooga male. anigaa idinka mas-uula, inaan mas-uul idinka noqdo, inaan hawshiina u qumo. adiguna qof dumaraa tahay, ilmahana waa ilmo yaro hadda maaragtay dee radiica yara ah. marka aniga ayaa mas-uuliyadiinii la wareegaya. wixii xoolo ahaa oo walaalkay lahaa iyo wixii xoolo ahaana aniga wakaaladoodii aniga igu wareeji, anaa mas-uul idinkaga noqonayo, aniga igu wada qor. gabadhu gabar fiican bay ahayd, qalbi wanaagsan, ilaahay subxaana watacaala bay aamintay, way ku wada qortay. wixii xoolo ahaa isagay ku wada qortay oo u saxiixday. markay u saxiixdo ku wada qortay, ay aamintay, ay tiri maaragtay anaa idiin dhaqaalaynaya, anaa idinku ilaalinaya, anaa idiin haynaya, way aamintay. haye bay tiri wixii dhan bay ku saxiixday. intuu baxay ninkii oo wixii walaalkiisii ma uusan qadarin, gabadhan maaragtay ilmaha agoonka mujuqa haysata ma qadarin, gabadhan aaminto muslimadda ma qadarin. yaa intuu wixii xoolaha kulli wixii xoolaha intuu wada gaday, wixii walaalkiis uu hanti lahaayo dhan, nin taajiro ilaa dhulal guryo wixii dhan intuu wada iibiyey ayuu lacagtii qaatay. gabadhii waxba uma keenin, waxna ma siin ilmihii yaraayo. gabadhii wixii xoolaha intuu wada gatay ayuu la dhoofay, wadankaba waa ka dhoofay. wuxuu u dhoofay xaggaa iyo maraykanku aaday buu yiri sheekha inoo ka sheekaynay. wuxuu yiri xaggaa iyo maraykanku xoolihii la aaday buu yiri. markuu maraykankii tegey uu wadankii joogo buu wuxuu islaan maraykan u guursaday. islaantii maraykankeed markuu guursaday, islaantii baa caawintay oo garab istaagtay. wuxuuba furtayba baaci mushtar maaragtay u madax bannaan asaga ayuu furtay. meel marka wuxuu furtay gawaarida lagu iibiyo. meeshii gawaarida lagu iibinayo uu furtay. 2 nin xoolo dhan watee meeshii waaba u bulaashay. meel gawaarida uu soo iibsado, haddana gawaaridii uu sii gado, meeshii shirkad dhan bay u noqotayba u bulaashay. wixii u siyaadeen u bateen. 20 sano kadib ayuu go'aan wuxuu ku qaatay inuu ku soo noqdo wadankii urdun, inuu yimaado wadankana uu ka bilaabo baac mushtar kale oo sida gawaarida loo iibiyo iyo oo shirkad kale uu halka ka aasaasto, oo wadankii uu guri ka dhisto, uu yimaado, uu dego, buu go'aan ku gaaray. xaaskiisii iyo caruurtiisii buu yiri halkan idinku sii jooga, wadankii baan aadaya urdun, waxbaan inoo bilaabaya, halkaasaan waxinoo ka bilaabaya, halkaasaynu xoolaheena iyo waxaynu kula wareegi doonaa. wadankii urdun markuu yimi sidii uu rabay bay u noqotay. xoolihii buu shirkadii buu bilaabay, arrintii buu samaystay,
wixii waaba u bulaaleenba waaba u bateenba yacni guri bahal guriya oo weynaaday dhul buu gatay dhulkiibuu bahal guriya oo qasri ah oo intee la egyahay uu ka dhistay oo maaragtay uu u diyaariyey reerkiisii inuu keeno rabaa gurigaasita marka maxaa dhacday marka shirkaddii maadaama uu samaystay oo shirkaddii shirkad caana noqotay oo muddo uu joogay oo shirkaddii u bulaashay oo xoolihii u bateen uu wadankii Urdun ka bilaabay ilaa wixii waxa laga soo daynaya akhbaaraha iyo wixii waa la isla socdaa wadanka waa la yaqaanaa wixiina waa laga wada hadlaa ninkan waa nin magaciisa iyo la yaqaano dadkiisa ilaahay amarkiisa gabadhii hooyada ahayd uu xoolaha ka qaato cunuga agoonka yar haysta walaalkii dhalay gabadhii baa aragtay ilaa ninkii iyo waxaan markaas waxay wiilkii ku tiri ee warkiisa heshay orod bay ku tiri adeerka waayo ninkaasiito xoolahaasiito iyo waxaasiito ee orod uu hayana hadda waaba xaq baaba ku leedahayo hadda waa wixii maaragtay ilaa iyadu waa ogtahay xoolihii iyo wixii ku maqan orod u tag adeerka orod bal inuu maaragtay ilaahay wax inoo ka soo qaado wiilkii oo 20 jir ah ayaa adeerkii u yimi waa suuxii oo dhan buu meeshii buu yimi adeerkii u yimi xafiiskii ugu yimi wuxuu yidhi anigu wiilkii walaalka hebel wiilkiisii baan ahay adeerow adaa adeerkaya maantana waa kan wiilkii hadda hooyadiis iyo isagaba faqriga iyo dhibaatada iyo diifta ka muuqata intaas sano ay soo korinaysay intaasna asna uu xoolaheeda ku raaxaysanayay ma uusan garan ilaahayna subxaanahu wa tacaala hadda rabbi sooma daalacanayo uma jeedo ilmihii yaraa markuu wiilkii adeerka u ahaa oo keligiis ahaa oo asagu waalidka u ahaa oo xoolihiisii ay tahay waxaanuu maanta ku dakaynayo baa yiri adeerow icaawin maanta waa kuu baahnay shaqo isii oo i garab istaag wuxuu ku yiri may maqlaysaa xoolana kaama arkin xaqna kaama arkin kumana aqaano dib damana wejigayga yaana kugu arkin waa cayriye wiilkii iriddu ka saar wiilkii waa cayriye waxna kuuma ihbay dib damana agtaada waxaan kaa arkay xaqan kaa arkay waxaan idinka arkayna male banaanka ku dhac buu yiri waa cayriye ilmihii yaraa oo diifta iyo duruuftaas ka muuqato intaasoo san hooyadiis maaragtay dhibaato iyo hawl ay la martay saas ma ku sameeyey waa wiilkii yaraa hooyadiisu iska soo aaday yaa saasuu qalbiga u jabiyey saasuu galay soo ilaahay ma joogo soo ilaahay ma daalacanayo soo maalintaas siday u aamintay alla ma ogeyn xaqa ku maqan alla soo ma oga rabbi subxaanahu wa tacaala ciriya dhul allaha maamulo soo ma aha yaa ilaahayga addoommadiisa u gargaaraya la dulmiyo soo ma aha waqtiba ha ahaatee subxaan allah maxaa dhacday marka walaalahayow ninkii guri haddee bahal qasriyo diyaariyey soo maha oo dhisay oo farta laga qaaday buu wuxuu sameeyey ayi nooc qasriga waa la goglay ayi nooc loo baahnaa baa la dhigo lagu qurxiyo loo dhigay gudihiisa waa la camiray shirkaddii halkaanay u bulaashay oo ninkii uu noqday nin wadankii Urdunna caanka ah oo sida businesskiisii iyo hawlihiisii iyo xoolihiisii ay u tarmeen yaa xaaskiisii iyo caruurtiisii buu wacay wuxuu yidhi hadda wixii dhan waa inoo diyaar wixii dhan waa idiin diyaariyey dhulkii waa idiin islaaxiyey shirkaddii waa idiin bilaabay xoolihiisa xagga yaallay buu soo wareejiyey halkan wixii oo dhan kula soo wareegay wixii dhan halkan iskugu duba dhaceen xaaskii iyo caruurtii yiri gurigii waa diyaar qasrigii waa idiin diyaari qasri haddii intee la egyahay la yiri subxaan allah oo kor iyo hoose dee asagii dhan la wada camiray la diyaariyey gawaarida adduunka waxa isku dakaynaya subxaan allah xaaskii iyo caruurtii buu yiri haye soo dhaqaajiya hadda wax kasta waa idiin faato adiga caruurtuba soo baxa xaaskii iyo caruurtii ayadii iyo caruurteedii baa soo baxeen maraykankii baa laga soo tegay wadankii Urdun baa la soo aaday eeriboorkii baa laga soo degay asagii soo maaha halkana bahal gaariya yaa la gelbinayo uu qaatay xaaskii iyo caruurtiisii inuu soo qaado eeriboorkii ka soo qaado halkaasuu aaday eeriboorkii buu tegay xaaskiisii iyo caruurtiisii buu soo qaaday yaa allahu akbar ilaahay sama joogo ma daalacanayo subxaan allah tuu sameeyey yaa isagu waa ilaaway yaa qalbigiisaba kuma laakiin ilaahay soma joogo yaa subxaan allah xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo isagoo eeriboorka ka soo wada oo gurigii aysan soo gaarin bay waxay galeen kaar accident galeen shil bay galeen yaa shil gaari xaadidkii gaariga shil bay galeen ayagii dhan meeshii bay ku wada dhinteen asagii iyo caruurtiisii
iyo xaaskii reerkii meeshaasi ku baaba'een, meeshaasi ku tageen, guriga aakhiro ugu wareegeen, qasrigii iyo shirkaddii iyo xoolihii. yaa ilaahay wiilkii yaraa uu Maraykan xoolihiisi lala galay alla u soo celiyey waddankiisi Urdun isagoo jooga, isagii iyo hooyadii 20 sano ay hawsha ku jireen oo faqriga ku noolaayeen. yaa dhaxlaaya? yaa ilaa ninkan qof la dhashay ma leh, aabihiisna awal yaa la dhashay halkaa adeer buu lahaa, walaal buu lahaa soomaa, uu wiilka adeer u ahaa. haddana wiilkii ninka ugu dhow oo dhaxlaaya ninkaasayto xoolaha iyo waxaasoo dhan yaa yeeshay, wiilkii baa yeeshoo dhaxlay. ilaahay baa bal ka waran walaalayaalo, subxaan allah. 20 sano kadib gabadhii iyo wiilkeedii agoonka ay haysatay, ilaahay xaqoodii u soo celiyey. ilaahayga deeqsiga oo kariimka ah oo arxamuraaximiinka ah, bal ka warrama. ilaahay iyagu intuu isaga xoolihii ugu dhiibay baa Ameerika loo geeyey walaalayaal, oo loogu soo tarmiyey, oo loogu soo bulaaliyey, oo haddana waddankii 20 sano kadib loogu soo celiyey, oo waddankii loo aasaasay, oo qasrigaa loo diyaariyey, oo xoolihii shirkaddii loo diyaariyey, oo loo shaqaaleeyey. ilaahay baa u shaqaalaysiiyey, ilaahay baa subxaanahu u maamulay. rabbi waa kaas deeqsiga ah, rabbigaasaynu haysanaa. xoolahoodii qasrigiina iyo gurigii iyo xoolihii shirkaddii faata iyagoo abaa waddankoodii loogu keenay Urdun. hooyadii 20 sano kadib xaqeedii alla u soo celiyey, iyo wiilkeedii iyadiiba xaqoodii alla u soo celiyey. walaalayaal bal ka warrama. reerkiina ninkii iyo caruurtiisa xaaskiisaasi guriga aakhiro ugu wareegeen, iyagoon halkii xoolihii la keenay Maraykan waxay ku soo dekeeyaanba, laakiin maanta Urdun waa kaasita reerkii xaqa iska lahaaba ilaahay xaqoodii u soo celiyey. agoon waa kan ninkii xaqiisa cuna, adduunyana hadda way taallaa, in la iska gooyo aakhirana way taallaa. subxaan allah. ilaahay inoo naxariisto, ilaahay inoo dambi dhaafo, ilaahayna hayna asturo. yaa marka naftaydii tiinaba cabsida ilaahan u dardaarmaya. runtii qisadaasu way taabatay, walaalayaal. waan iska jirnaa agoonta iyo masaakiinta xaqooda. naftaydii tiinaba cabsida ilaahan u dardaarmaya. adduunya qaymo ma leh. maanta waxaad u malaysay inay maantay ay wax ku tarayaan, laakiin waxaa laga yaabaa cuquubada oo hadda u soo jeeda xaaskiisa iyo caruurtiisa waa taa cuquubadii dhibaatadeedii keentay. yaa subxaan allah. ilaahay baana gabadha xaqeeda iyadii ilmaheedaba u soo celiyey, ku mahadsan. ilaahay markaa inoo naxariisto, ilaahay inoo dembi dhaafo. dulmigu siduu rasuulkeenu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waa mugdiyada maalintii yowmal qiyaama. ilaahay kuwa iska ilaaliya oo xaq bini aadan aan qaadan, allah ina ka dhigo. rabbi subxaana wataala ilaahay inama saaro dulmi. waxa hoogay ninka dulmi xambaarsan maalintii yowmal qiyaama, siduu ilaahay u yiri kaasaa hoogay. ilaahay dulmi inama saaro adduun iyo aakhiro, alla inama geliyo. cafiya caafimaad iyo barwaaqan idiin rajaynayaa. warsanaya wax khayr iyo warbarakana allah inoo soo yeeriyo. runtii way taabatay sheekha inoo soo gudbiyana khayr allah siiyo. inagana allah ehelkiisa u barakay, inagana kuwaana qaata allah inaka dhigood iska ilaaliya agoonta iyo xaqooda iyo maaragtay dadka masaakiinta ah. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. subxaanaka wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.